السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان بلشوينتا سوماليات ميل walba joogan waan salaamay aroori sooban subax wanaagsan ayaan idin leeyahay waa saaxiibkiini Yemani maanta waxaan rabaa halkaan in aan ka jeediyo fariin muhiim u ah dhammaan musharaxiinta beesha Mudulod Abgaal waxaan rabaa in aan la hadlo musharaxiinta Mudulod Abgaal fariin waxaan sida fariin ka socoto dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Mudulod Abgaal waxaan sida fariin ka socoto shacabka Mudulod Abgaal ku abtirsada maanta walaalayaal ma ahan maalintii la saxaasinimay jiray ma ahan maalintii la loolami jiray ma ahan maalintii qof walba wixiisa oo haysto dhinac ku raadsan jiray maanta waxaa la iska baahan yahay maanta waxaa la iska baahan yahay tanaasul maanta waxaa la iska baahan yahay garab maanta waxaa la iska baahan yahay walaalnimo maanta waxaa la iska baahan yahay dimuqraadnimo maanta waxaa la iska baahan yahay in qof walba oo Mudulod Abgaal ah ay soo saartaan laba musharax intooda kalena ay u tanaasulaan walaalahooda si xilkaan u dhaafin Abgaal iyo Habargidir waayo Habargidir waan ognahay waxa ay sameeyeen waxay sameeyeen tanaasulkii ugu weynaay tanaasulkii ugu muhiimsanay waxa tanaasushay laba musharax Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo Dr. Cabdinaasir Cabdulle waayo nimankaas waxay codkooda siiyeen aba u tanaasuleen musharax madaxweyne xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo runtii ah ninka Soomaaliya ugu mudan dhammaan beesha Mudulod Abgaal biliis isku tanaasula maanta kale tanaasulku waa muhiim wallahi waa muhiim maanta hadaa tanaasul sameysaan biri ayaad farxaysaan biri taariikh ay qormi doonta waayo maanta wax walba adiga ayaa sameyn karo musharaxiinta ugu badan adiga ayaa wato xildhibaanada ugu badan adiga ayaa iskale biliis isku tanaasula tanaasulku maanta kale wallahi waa muhiim wallahi billahi waa muhiim saaxiibkeeni Yemani ayaan ahay oo halkaan fariin adag ka dirayay dhamaan halkaas ayaa ku soo gabagabeynaya waa saaxiibkeeni Yemani oo inta barnaamijka mid la ayna ku kulmi doono waxaan idin ka tagayaa